Guddiga doorashada Galmudug garabka Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa soo saaray jadwalka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug. Guddigan ayaa sheegay in 23 ilaa 24 January la qabanayo araajida musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug. 25 ilaa 28 January ayay guddigani sheegeen inay ku diyaar garoobayaan musharaxiinta si ay ololahooda u sameeyaan. 29 January ayaa lagu sheegay warqadda ka soo baxday guddiga doorashada Galmudug garabka Ahlu Sunna inay noqon doonto maalinta la dhageysanayo khudbadaha musharaxiinta, halka maalinta xigta ee 30 January la dhageysan doono musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenada. Ugu dambeyn, guddiga ayaa sheegay in 5 February oo ku beegan maalin Arbacaha la qaban doono doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Galmudug. Arrintan ayaana ku soo aadaysa xilli shalay guddiga doorashada Galmudug garabka dowladda Soomaaliya ay soo saareen shuruudaha iyo jadwalka doorashada Galmudug kadib markii la isku khilaafay cidda guddoomiye u noqonaysa guddigaasi. Xiisadda u dhaxaysa Ahlu Sunna iyo dowladda Soomaaliya ayaa mar kale meel sare gaartay, waxayna Galmudug martigelin kartaa doorasho ilaa 3 madaxweyne, maadaama madaxweyne Xaaf uu asna kaalkacyo ka wado dhismaha Galmudug.